السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين مامونا iyo mar kale maanta haduu Allah subhanahu wa ta'ala uu ka raali noqdo waxaan kor istaagaynaa thyroidka anoo marka hore aad iyo aad idin salaamayo intiina ay subaxda u tahay subax wanaagsan intiina ay habeenka u tahay habeen wanaagsan saacada ay joogtaba ha ku wanaagsanaato maanta waxaan kor istaagaynaa haduu Allah subhanahu wa ta'ala uu ka raali noqdo thyroidka ayaan kor istaagaynaa iyo waxyaabaha aad ku garan karto maxay muhiim u tahay hadii aad tahay hooyo doonaysa in ay mataqaanaa soo saa'idsato ilmo oo thyroid leh waxa laga yaabaa in ay kugu adkaato xaaladda urqaadka hadii aad tahay hooyo waxaa laga yaabaa in aad dareento daal fara badan in aad dareento oo aad dareemaysid daal fara badan waxyaabo fara badan keena laakiin inaad ogaatid in uu thyroidka jirkaaga ku jiro in kale oo mar walba aad daalan tahay hadii aad muddo la dagaalamaysay in aad dhinto cayilkaaga oo wax walba intaa samaysay waxyaabo badan intaa samaysay cayilkaaga dhaqso uusan degaynin hadii mar walba calooshaada ay fadhido waxaa iska baartaa walaashayda muslimada ahay thyroidka iska baar sababtoo ah calaamadahaas aan soo sheegay insha Allah ajalkaana dhamayso biidnillaahi baari una gudbi walaalahaaga Soomaaliyeed biidnillaahi baari intii aad gaarsiin karto si ay walaasha kale jaanis ay ugu hesho ayadana inay iska fiirso inay mataqaanaa waxyaabahan culayska ku keenayo in ay tahay thyroidka inuu yahay also ajalkan waxaan kaga hadlaynaa maxaa cunto ah ama maxaa dabiici ah oo thyroidka aad ku xadidi kartaa ama aad ku yareyn kartaa dhibaatooyinkiisa masha Allah tabarakallah thyroidka marka horta muxuu yahay thyroidka laba qaybood uu kala baxaa thyroidka waa thyroid gland ayaa la yiraahdaa sawirka ayaa ka arkaysaan wuxuu ku dhacaa qanjidhada dhuunta ayuu ku dhacaa isla mar ahaantaasna labada qaybood oo uu kala baxo waxay tahay wuxuu sameeyaa hormone ayuu sameeyaa marka marna wuxuu soo sii daayaa hadii uu qalqalo hormone fara badan ayuu jirka ku soo sii daayaa marna wuxuu yareeyaa soo sii deyntii hormoonka ayuu yareeyaa marka wuxuu noqdaa laba qaybood oo thyroidka ah xanuunka loo yaqaan oo kala duwan astaamahooduna uu kala duwan yahay haddaba labadan qaybood waxay effect gareyn karaan labadaba maxaa la yiraahdaa in waxay kugu keeni karaan in mataqaanaa caadadaada ay qalqasho in gabadhii mataqaanaa dhaqso uur yeelan kari weydo sababtoo ah caadadii ayaa hormoonkan thyroidka ah wuxuu ku keenay qalqal uu ku keenay oo jirkii ayaa waxaa ka socdo shaqo qaldan ayaa jirkii ka socoto oo wax fara badan oo aan loogu talagelin in jirka markaas lagu soo sii daayo ayuu thyroidkaagii u soo sii daayay taas ayaana keenaysa marka inay adkaato waxaa kale oo adkaanaya xataa gabadhii haddii ay uur ku yeelato ayadoo thyroid kale waxaa iman kara dilan ayaa iman kara ama miscarriage ayaa iman karta oo inay ilmaha 3 bilood markay soo gaaraanba ama inta 3 bilood ka horeysaba inay maxaa la dhahaa ilmihii ay dilmaan ayaa iyadana suurtagal ah waa inay kuba adkaato oo inay uurka qaado uu ku celiyo iyo in haday uur qaato uu mataqaanaa uurkii u soo dilo labadaba lagu sameeyaa number xaddi yar ayaa waxa laga yaabaa uurkaasi inuu successful uu noqdo biqadri dillah marka thyroidka marka uu intaas uu sameeyo waxyaabaha kale aad ku garan karta marka waxay tahay thyroidka wuxuu leeyahay subaxa hore madax xanuun daal fara badan oo hadii aad seexatay iyo hadii aadan seexanin ba aadan kala garanaynin oo aad iyo aad u daal fara badan gacmaha oo qabooba lugaha iyo gacmaha oo mar walba qabooba ama dhaxantaada oo badata by the way waxyaabo kale oo fara badan oo astaamahan keeni kara ama xanuuno kale oo keeni kara waa jiraan marka mar walba waa inaad dhakhtarkaaga inta la socoto oo dhakhtarkaaga uu dhiig ka qaado lagugu sheego thyroidka ayaa ay ku ogaan kartaa xaqiiqada jirkaaga waxa ka dhex dhacayo laakiin hadii astaamaha aan soo sheegay astaamo kamid ah haysato dhakhtarkaaga la xiriir biidnillah si aad u ogaato oo aad u hesho in mataqaanaa hormoonkaas la balance gareeyo la yareeyo mataqaanaa dhibaatada ku haysa walaashay
اللهم صل على محمد. marka qaybta noogu xigta ayaa waxay tahay thyroidkii marka uu saas u kacsan yahay oo qofkii shaqadii jirkaaga ka socotayba ay qaldan tahay waa qayb fariisinaysa calooshii iyo qayb calooshii socodsiinaysa maxaa la yiraahdaa timihii oo dhacaya ama daadanaya ama khafiif noqonaya qofkii oo mataqaanaa daalkiisii u fara badanayo qofkii oo gabadhii oo mataqaanaa cayilkeedii uu fara badanayo ama dhinaca kale gabadhii oo caatadeedii fara badanayso oo mar walba wax alaaliya waxa ay cuntaba aan maxaa la dhahaa aan cayilaynin ama jirkeedii caadi uusan kusoo noqonaynin oo lose weight kaliya wada ama gain weight wada oo wax walba ay sameeyso hadda istiraahada iscaatee si walba oo xataa cuntada iskaga jarto dhig la'aan iyo waxyaabo kala ku dhacaya ma ogiye hormoonkeedii balance ma aha oo bacaatoobayso sababtoo waxa keenaya waxaan ku furan ayaa cayilka sii badinayo ama hilibka sii saaray. اللهم صل على محمد. haddaba dhowr cunto oo waxaa jirta u daran iyo dhowr cunto oo u fiican ayaa mataqaanaa jirta mar walba qofka inuu cuntooyinka caafimaadka leh uu cuno biyo badan uu cabo exercisekiisa uu sameeyo waa common caafimaadka guud oo dhan ee qof walba oo bilo aadmi ah laga rabo. haddana gabadha leh thyroid kale waxyaabaha iska ilaalinaysa waxaa ka mid ah bini baadarka ama lowska. bini baadarka ama lowska wuxuu ka mid yahay waxyaabaha sii kicinaya oo ku sii mataqaanaa xoog badnaysiinaya ما شاء الله تبارك الله وحيابها قاركود أنجا ولا له سوماليات قبلها إن أمضنينايو لكن سيد أجارك وياه وأنا أشياء دتك الكحول كعباء دتك سيجار كعباء أنجا نمقصيصو قبلها إن السوماليات مقصيصو لكن وحيابها كعيا أي كمتهاي وحيابها صدن وحيابها كعنكرا أي كمتهاي أو بنبعد الكنا وكمديهاي وحيابها وناكسن أي أيضا مركا وحيت وحاكمد فيشكا قبضة maxaa la yiraahdaa ma sha Allah tabaaraka Allah fiishka kalluunka hadba wixii kalluun ah heli karto oo waliba cusbooyinka dabiiciga cuntooyinka cusbooyinka dabiiciga ah maalmahan dambe waxa jirto cusbooyin la yiraahdo waa healthy sida hadda Himalaya oo kale qofka thyroid kale waxa ooga fiican cusbada iodine ay ku jirto ayaa ooga fiican insha Allah iyadana sawirkeeda waa idin soo saari doonaa sababtoo ah hormoonadaas ayay ama hadii hormoonku uu ku badan yahayna way yareynaysaa hadii uu waxay ka saacidaysaa inuu yaraado hadii uu yar yahayna waxay ka saacidaysaa inuu maxaa lahaa u bato marka cusbada iodine-ta ay ku jirto iyadana aad iyo aad ugu fiican tahay waxa kale oo iyadana u fiican broccoli-da haday tahay cauliflower-ka iyo broccoli-da labadaba broccoli-da ma garanayo walaalahay reer Soomaaliya ma sha Allah tabaaraka Allah broccoli wadankeena in laga helo iyo in kale ma garan karo idinkaan rabaa inaa horta waxyaabahaas ay iga soo caawitaan oo ay soo sheegtaan hadii uu mataqaanaa laga helo wadankeena qudaarta ka baxda ay kamid tahay ma sha Allah tabaaraka Allah walaalaha North America iyo Europe joogo idinka waa ogahay inaa mataqaanaa broccoli iyadoo cad iyo iyadoo madowba ah helay iyadoo cagaaran ba ah helaysaan biidnilaahi baari marka broccoli-daas aad iyo aad bay mataqaanaa ugu fiican tahay marka ha wada karinin oo zaid ha u karinin steam wax yar oo mataqaanaa biyo ah ku buri ama ofinka wax yar gali ama wax yar oo biyo ah mataqaanaa ku buri laakiin zaid ha u karinin biidnilaahi baari aad iyo aad ay ugu fiican tahay waxa kale oo u fiican afakaadada ayaa iyadana mataqaanaa u fiican marka waa inaad sameeysid salad waa inaad ka sameeysatid ama waxyaabo fara badan oo la isku daro oo waxa jirta marbaan iyadana si gooni ah maadaama aniga aana thyroid aana lahayn laakiin idinka aawadin ayaan waana cunto caafimaad leh oo qof walba uu cuni karo biidnilaahi baari marka insha Allah biidnilaahi kariim hadii waqtiga uu ii saamaxo ii soo duceeyo biidnilaahi baari waqtigeyga ayaa mataqaanaa aad iyo aad ma sha Allah iskaga ah marka hadii waqtigii ii saamaxo biidnillah saladkaas aadka ugu fiican maxaa la yiraahdaa thyroidka waan idin la wadaagi doonaa biidnillah baari
waxyaabaha kale oo thyroidka u fiican waxaa ka mid ah saliidda loo yaqaano saliid macsarada ayaa mataqaanaa aad iyo aad iyadana ugu fiican ha iska badinin wax walba waa inaa xad u qaadataa laakiin waxyaabaha aad meelihii aad saliid aad ka cuni lahayd inaa mataqaanaa isticmaasho alxamdulilah saliid macsarada wadankeeni aad iyo aad baa mataqaanaa looga helaa oo taas waa ogahay maasha allah tabaaraka allah malabka oo kale biidnillah waxyaabaha aadka ugu fiican ayuu ka mid yahay biidnillahi baari marka cuntooyinkaas actually xanuunkii ma qaadayaan laakiin waxay limitation ama yareynayaan hormoonkii faraha badnaa ee jirka soo geli lahaa shaqadiisii ayay xoogaa sida ma aragtay marka maxaan examplekaaba ku xumaaday yaa waxay adiga ka hortagayaan hormoonkii inuu sii bato camal ayay sii yareynayaan oo ay cabrinayaan jirkaagana waxay gelinayaan hormoon kale ayay gelinayaan marka labadaas shaqo isla socoto ayaa mataqaanaa asaga shaqadiisii qaldaysa ما شاء الله تبارك الله والله هيك أن جعلها بإذن الله باري وإن الله سوى ذاك الدوناء عنتوين كاس لكن والله فرب بضن عطس قاضي أي عدل كان أن أسميه أو وحن نوان سميه محا أمالين يسا ممنوع إنه إذا قلدين حي مركب بإذن الله باري والله لها هدي ألينهين أرمها النوع عن عن كسوها الله أصلا ما سدي ألينهين بإذن الله باري كومنتيجا يوصل قرب بإذن الله أنا جن هدي الله سبحانه وتعالى وكرع للنقضة وحان وقتي إلهي أنا بركية وحان إذن سوها جاجين دونا وقتي لو محلي هذا سلركاس بإذن الله باري صورة حيوها وفي عنا العجل كان كهليسان دمانتي ولا له أنجع له وحن لي هاي وحلالي وحاقة دام بجلاسك بيها كبطان با دمانتي الله سبحانه وتعالى عافمات إذن قدروا نور الله إذن ساروا الله سبحانه وتعالى يا عافمات كبحية رب يا إذن ويدين يا أنت عافمات كقبطاء الله إذن سائديو الله نوسا إذيو أنت حنوصن إلهي سبحانه وتعالى مال الله لي ماشي حنوصن تي ماشي كتبان تهيبا ربك سماواتك وحن كوي دينيا إنه إلهي سبحانه وتعالى وحنونك كاقاضو بإذن الله باري ولا له أنجع لهاي دمانتي محايد الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.